hadda garoonka bartankiisa u sacabinaysa si ay u dhiirigeliso labada ciyaartoy iyadoo tarabuunkuna sacab ay tulmayaan marwaadna aadan ergeyga jamhuuriyadda Soomaaliland u qaabilsan wada hadallada ictiraafka ayaa si dhiiran ula hadlaya labada ciyaartoy marwaadna aadan waxa weeye hooyada qaranka Soomaaliland waa qof qiimo weyn ku leh marka la eego bulshada dibdhiska nabadeynta iyo halgankii dalkaba door weyn ay ku lahayd arrimaha caafimaadka ayay sidoo kale hooyooyin fara badan ay doorkooda ka qaadatay arrimaha caafimaad marwaadna aadan waxa weeye dadka loogu jecel yahay jamhuuriyadda Soomaaliland oo qof qiimo ku leh qof yar iyo qof weynba waxay qarankan ku aastaysan tahay tiirarka ama bilada dhalaalay ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka dultaagan marwaadna aadan waa dadka ugu qiimaha badan la sidaan tilmaamay Allah u naxariistay xaaji Cabdikariin Cabdi Xuseen Cabdi Waraabi ayaa isaguna kamid ahaa dadka sida yar iyo weynba loo qiimeyn jiray adna aadanna sidaas oo kale ay maanta tahay dadka iyada oo maanta joogta qiimaha weyn qaranka ku leh arrimo nabadeed arrimo diblomaasiyadeed arrimo ictiraaf raadin arrimo nabadeyn iyo arrimo dadaal waxay kamid tahay dadka qiimaha weyn ku leh qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland marwaadna aadan waxay si toos ah ula hadlaysaa ciyaartooyada gobolka Maroodi Sheekh iyo gobolka Gabiley waxay u sharaxaysaa muhiimadda ay leedahay ciyaaruhu waxay kala hadlaysaa muhiimadda ay leedahay isdhexgalku waxay kala hadlaysaa arrimo fara badan oo ah qarannimada wax walba ay ka muhiimsan tahay marwaadna aadan bartamaha garoonka ayay ku jirtaa goordho marka ay soo baxdo ayay ciyaartu si rasmi ah u furmi doontaa marwaadna aadan bartamaha Hargeysa Stadium ayay gacan kula jirtaa intay isdhexgal labada ciyaartooyba tarafka ayaa u sacabinaya oo tilmaamaya muhiimadda ay leedahay walaadnimada ciyaaraha sawir qiimo weyn ayay sameynaysaa marwaadna aadan inay dhalinyarada tusto marwaadna aadan ayaa ciyaartooyada qaladaas arrimo fara badan oo muhiim ah tarabuunka ayay kala hadashay Hargeysa Stadium haafkii dambe tababarayaasha ayaa loo wareegi doonaa labada xulba ay muujinayaan in si toos ah ay idigu imanayo marwaadna aadan sacab ayaa dhalinyarta garoonka sacab ayay garaacayaan sacab ayaa lagu soo dhaweynaya si toos ah ayaa aadan idin hor keeni doona telefishinka qaranka Soomaaliland si toos ah idigu gudbinaya marwaadna ku soo dhaw Hargeysa Stadium Hargeysa Stadium baan joogaa caasimadda Soomaaliland baan joogaa ciyaartooy baa ciyaaraysa si qurux badan u ciyaaraysa ciyaaruhu waa kuwaas maanta waxba farxi dhici mayse caruurtu si wanaagsan bay u ciyaaraysaa shirku si wanaagsan buu joogaa nidaam iyo qurux baa halkaa ka muuqata hargeysaan jooga stadium hargeysaan jooga kii ilaahay guusha siiyo alxamdulilah doorka dambe ayaa loo soo diyaar garooba ciyaartu waa taas maalmo mid baa hela labaduma wada guulaystaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عسى بالله هذا ما يا لوك عيال هاي وين سلام